baarista xogta macdanta oo dhowr nooc kala ah ayaa soo bilaabatay sanadkii 1920kii taas oo soo socotay ilaa sanadkii 2018kii waxaana sameeyay khubaro kala duwan oo dalka Britain ka soo jeeda dawladda Soomaaliya ayaa la wareegtay xogtan oo muhiimad gaar u leh dhinaca kheyraadka dabiiciga shirkadda SK ayaana hore u soo iibsatay xogtan Michael Douglas madaxa shirkadda SK ee xogtan soo iibsatay ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu sheegay in dhul badan oo Soomaaliya ka tirsan ay ku jiraan macdan sidoo kale saliid gas shidaal diamond dahab iyo waxyaabo kale oo muhiim ah This is a new venture tani waa tallaabo cusub waxaanu arkaynaa in Soomaaliya ay ka jiraan fursado aad u fiican ee dhinacyada horumarinta kheyraadka macdanta ee dalka waxay keenaysaa arintan in dalka Soomaaliya uu helo maalgashigii loo baahnaa taasi oo fursad badan oo shaqo abuur u noqonaysa shacabka Soomaaliyeed waxaana shacabku ay noqonayaan kuwa ku noolaada sidoo kale waxaa la daahfuray mashruuc ay shirkadda SMMJ ku maalgelinayso macdanta Soomaaliya wasiirka batroolka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa tilmaamay in kheyraadka Soomaaliya alla siiyay ay lagama maarmaan tahay in loo helo maalgashi ayna diyaar u yihiin in dadka Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan waxaan amaanay macluumaadka dawladda lagu wareejiyay waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda runtii dadaalka ee u gashay inay nagu wareejiso macluumaadkan qaaliga ah ee wadanka uu leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa cid ka soo maalgashanaysa Soomaaliya dhinaca kheyraadkeeda ha noqoto macdan qaybaheeda kala duwan ha noqoto shidaal ha noqoto gas intaba waxaan soo dhaweynaynaa cidii maalgashanaysa oo ay ugu horeyso shirkaddan hadda SMMG wasiirka batroolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo dhaweeyay daafurka shirkaddan cusub ee SMMJ